waalidow caruurtaada maxaa iskuulka loogu dhigaa weli su-aashaas ma isweydiisay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalaha ilahay darsi jecel meel adduunkaad ka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar walbo waxaan jeclahay inaan ka wada hadalno waxyaabaha muhimke markaan barano diinteena dacooyinkeena iyo salaada iyo axkaamteeda iyo su-aalaha iyo taas waa wadeynaa laakiin maalmahan waxaa soo baxay oo soo ziyaaday arrin aada u adag arrin aada u xun arrin qatirteeda wadato oo caruurta maalmahan waa loo baqaa caruurta loo baqo waa caruurta adduunka dhan joogta meel walba ha joogaan xataa kan xamar joogo ama kan hargeysa joogo ama kan burca joogo adduunka meel walba ha joogo cunug walba meesha walba ha joogo waa loo baqaa laakiin waxaa aada loogu sii baqaa caruurta reer galbeedka ku nool yurub iyo mareykankaba australiana ku dar iyo canada sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan ogaana dhibka muxuu yahay xalkana maxaa waaye laana nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay jiro ma jirto ama dhib ma jiro ilaa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu sameeyey xal uu sameeyey maa min daa'in ilaa walahu dawa jiro ma jirto xumaan ma jirto dhib ma jiro culaas ma jiro ilaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu sameeyey daawo uu sameeyey waxa socda maalmahan qof walba ogyahay oo iskuulaadka laga wado maalmo dhaweyd waa aragteen waalidiin oo reer Minnesota iskuulkiina aadeen waalidiinta qaarkooda hadalla ay ku hadlayeen oo ilmahooda lagu soo sameeyay aniga nahay cunugeeda in cunug kale la yiraahdo kala kee jecesho cunugeeda uu doorto oo inuu hagsiiro oo kale weligii waa ku jeclaana uu yiraahdo oo inuu example laga yaabo ilmaha hadla waaye ilmahan hadlin soo ma jiro ilmaha waa soo qaadnay iskuulkan wada dirnay kama warhayno ma ogin waxa loo soo dhigo arrintaas waxaan rabnaa inaan gadaal ugu noqono arrintan wax hal maalin ama laba maalin ama saddex maalin lagu xalli karo ama laga hadli karo ma ahan waa kala qaybinaynaa maanta waxaan rabaa marka inaan ka sheekeeyo qaybta ugu horeyso waalid gaar ahaan aabbo ma ogtahay mas-uuliyadda ku saaran ma ogtahay caruurta inay nicmo tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala caruurta markuu ka hadlayo wuxuu ku sheegay inay hiba tahay yahabu liman yashaau inaathan ilaahi wuxuu yidhi caruurta qofkuu rabo wuxuu u hibeeyaa dadka gabdho wayahabu liman yashaau dhukuur qofkuu rabo ilaahayne wuxuu u hibeeyaa wiilal bas dadkuu rabana ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu isugu daraa dadkuu rabana ilaahi wuxuu ka dhigaa madhaliisuu ka dhigaa caruurta marka nicmo waaye nicmo walbane waxay leedahay mas-uuliyaday leedahay la tus'aluna yowmaidin can innaciim maalin ilaahi subxaana wa tacala naciimtuu ku weydiinaa sidaa darteed waxaan rabaa inaan sheego aabbaha waa mas-uuliyadda saaran iyo hooyada mas-uuliyadda ka saaran caruurteeda waxaan ku bilaabaa mas-uuliyadda saaran aabbaha walaalkay qaaliga ah wiilka soomaaliga aabbaha soomaaliga dhalinyarada soomaaliga ah ilaahi subxaana wa tacaala markuu nala hadlayo muslim markaan nahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيضا وحوك بالله بإلهي السجون الله يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي رميو نفتينا إيهلكينا نارتك إلالية أيضا وحوك سعطة إلى هاد ليسا نينك ولكن قادق أدي كل هاد ليسا حاسك لما هاد ليسو أدي كل هاد ليسا نمبر 1 waxay ku leedahay hebalow axmedow ilaahay wuxuu ku weydiin doonaa xaaskaaga iyo caruurtaada ee ka ilaali naftaada iyo xaaskaaga iyo caruurta ka ilaali mas-uuliyadaas waxay ku amraysaa inaad badbaadisid xaaskaaga iyo caruurtaada number 1 xaaskaaga caruurtaada inaad badbaadisid si ku badbaadina waa inaad ogaatid marka hore ilmahaaga maxaa iskuulka laga soo siiyaa walaalkay qaaliga goormaa kugu dambeysay ilmahaaga buugooda iskuulka laga soo siiyay inaad fiirisid aragtid qof kale ma ku haleynaysaa hadaa dhiis xaaskan ku haleeya iyada shaqadeeda tahay aniga banaanka taasoo kale another case kala waa laakiin goorma kugu dambeysay caruurtaada buugooda aa fiirisid caruurtaada macalinka u dhiga aa wareysatid caruurtaada maxaa iskuulka loogu soo dhigaa inaa wareysatid caruurtaada macalinkooda inaa wareysatid caruurtaada yay saaxib leeyihiin inaa wareysatid caruurtaada maxaa homework la soo siiya inaa wareysatid homework sidii aga xaliya inaa wareysatid buugaagtiina itusi ma dhaxday caruurtaada ma ka wareysatid iskuulka wax ka socda goormaa kugu dambeysay walaalkii caruurtaada waqtigaas inaa siisid
هذا walaalkay qaali waxa laga yaabaa mas'uuliyadaas inay saytaha u qaadatay maxaa xal ah sidee la sameeyna halkee laga bilaaba waa ka hadli doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo haddii aad sameyn jirtana khayr allah ku siiyo si laba laab haddaadan sameyn jirin hadda inaad baraarugtida loo baahan yahay walaashay qaaliga ah hooyada gabadha Soomaaliyeed hooyada ah caruurta leh si fiican ugu dadaasho caruurta ma ogtahay mas'uuliyada ku saaran oo caruurtan ilaahay ka saaray rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati qof walba waxa loo dhiibay qof walbana waa la weydiinaa wixii loo dhiibay ninka waa ka soo hadalnay hooyada wal mar'atu raa'iyatun fi bayti zawjiha gabadhu waxay mas'uul ka tahay oo loo dhiibay guriga ninkeeda waxa la weydiin doonaa ninkeeda iyo caruurteeda la weydiina caruurtaada walaashay qaaliga mas'uuliyada ka saaran ma taqaana waxay tahay gabadha walaashay mas'uuliyadaada kaliya ma aha inaa subaxii ma u soo kacdido canjeer siisid inaa subax u soo kacdido cadaysid inaa subax u soo kacdido timaha u shalaysid oo dharka u gelisid gabadha timaha u shalaysid wiilkana aad dharkiisa xirtay xijaabkeeda u xirtay gabadha intaas kaliya ma aha walaashay intaas jismigay korisa wax ka weynaa jiro ilmahaaga iskuulka markay ka soo noqdaan ma fiiriso homework-gooda la soo siiyo hadduu xaajiga mashquulsan yahay ama adiga uu kaaga tagay mas'uuliyada qaybtaada adiga ma ka soo baxday cunugaaga iskuulka waxa laga soo siiyo weli ma fiiriso walaashay qaaliga boorsada cunugaaga ma furtay gabadhaada boorsadeeda ma furtay ma weydiisay wax loo soo dhigo macalinkeeda ma ka wareysatay macalinkiisa ma ka wareysatay asxaabtu iskuulka kullee ma ka wareysatay maxaa maanta la soo siiyay ma ka wareysatay qisooyinka iskuulka ka dhaca ma ka wareysatay walaashay gabadh walaashay marka caruurtaada iskuulka soo degi jirta oo telefoonka dhagta kugu jira oo dhigi jirta homework-kii ka shaqeeya waxaas waa laga soo tagay hadda waa lisaga daba yimid caruur yar haysatay oo maadan baqaynin homework aan baqaynin laakiin hadda waa lisaga daba yimid sheekadii cunugaaga yariiska ah oo first grade ama second grade ama third grade ama fourth grade ku dhigto waxyaabaha loo soo dhigaa iskuulka sida darteed waxaa loo baahan yahay inaa ogaatid cunugaaga waxyaabaha loo soo dhigo adoo telefoonka ugu jiro hadhihin bax homework ka soo shaqeey telefoonka iska dhig buugaagta ilmahaaga fur ag fariiso fiiri waxay ka shaqeynayeen warayso khayr allah ku siiyo hadaba waxaan rabaa inaan idiin sheego waalidka aabbo iyo hooyo mas'uuliyad weyn idiin soo fuushay marka hore waxay dhihi jireen waalidiinta aan garanayo caruurtii waa soo weynaatay maxaa xal ah teenager soo noqdeen halkeengiina hadda laakiin waxaas waa soo dhamaatay hadda ayagoo yaryar la isugu yimid ayagoo yaryar lagaga daba yimid caruurta maxaa xal maxaa la sameeyaa waa ka soo sheekeyn doona xalaqada soo socota insha Allah taala laakiin intii xal la gaaray waxaan rabaa ina ogaatid ilmahaaga wax la soo siiyo homework-dooda aad ka warhaysid boorsadooda aad fiirisid aad la sheekeysatid saaxiibkooda aad ogaatid iskuulaadka aad aadid wax loo dhiga aad fiirisid iskuulka aad wareysid ilmahayga maxaa loo dhiga buugaagta loo dhiga maxay tahay ina ogaado intaas laga rabaa insha Allah taala xalne si xal aan u maleynaa iyo culimada kale oo idin soo gudbin doona insha Allah ugu dambeyntii waxaan idin ka codsanaa ilaahay idin wada xifdiyo dambigiina Allah dhaafee marka dhageysatid agtaadii u istaagin si gudbi walaalaha kale u si gudbi khayr Allah ku siiyo جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دنبي يكين الله دافو جنة الله نو كل مية وينو حلقة صو صوتية محا حلقة محا سمينا عروت يسيون بدبات سنة بارك الله فيكم جزاكم الله خير فضلا كفائدي سؤال الله كانوا سيقود بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته